استغفار با إلهي يري واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما استغفارتها كتجن با لغا يري إله آد بريسا ee mar walba aad u noqonaysa xaqiisa waa alla dhaafid badan oo naxariis badan weeyaan ad'uuni astajib lakum ba ilaahay yiri ibadiista anigoo ibarya aniguna waan inaga ajiibaya ducadiine la in shakartum la azidannakum hadda ni'amtayda igu shukridaan ba ilaahay yiri aniguna waan inii biirinaya dambiila taho mar walba dambi uu ka soo dhacaya marka istighfaarta ha ka tagin mar walba waxa tahay mid baahidaada ilaahay u sheego ilaahay bari oo saacadaha ducada la aqbalay ducada ilaahay aqbalo ee ahadiista nabigeena kaleeyhi salaatu wasalaam nabigu noogu sheegay xilliga ilaahay bari oo baahidaada ilaahay u sheego salaada markii laga baxo ducada waa la aqbalaa roobku markuu da'ayo ducada waa la aqbalaa maalinta jumcada saacada ijaaba ku jirta habeen walba waxa uu nabigu noo sheegay inay ku jirto saacad ilaahay tabaaraka wa taala uu ducada aqbalayo oo leeyahay ayaa waxay weydiisanaya hansiye ayaa toobadkeena toobadahan ka aqbale ayaa maaragtane dambi dhaaf doonay dambigiisa han dhaafe saacadaha kaco ilaahay la munaajayo baahidaada ilaahay u sheego aqrab ma yakuna al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi ad-du'a faqimanun an yustajaba lakum nabigu alayhi salatu wassalam markuu adoonku ilaahiisa ugu dhawaasho badan yahay waa marka sujuuda wajiga dhulka ku haye xilliga ducada badiya buu nabigu alayhi salatu wassalam waxa xaqiiqa abu nabigu leeyahay xilliga ninka ducaysta ilaahay ducadiisa inuu aqbalayo walaalkaaga muslimka oo aan ka warqabin oo u ducaysa bidahar al-ghayb aad uga ducaysa oo ilaahay iimaan u weydiisa hidaayad ilaahay u weydiisa tawfiiq ilaahay u weydiisa barwaaqo ilaahay aad u weydiisa caafimaad ilaahay aad u weydiisa taasaana ugu ijaabo dhow nabigu alayhi salaatu wasalaam adigu walaalkaaga muslimka aan war ka qabin markaad u ducaynayso korkaaga malag ba taagan marali markaad walaalka u ducaysidba walaka mithluhu malagi wuxuu ku leeyahay aamin ilaahu ducada aqbal walaka mithluhu adiguna waxaad walaalka aad u tiri adigana annaka ku nidhiya aamin dhabu ku leeyahay malagu ducadaadaas adiga in la aqbalayo ilaahay ba garan laakiin ducada malagu waa mustajaabo weeyaan markaad walaalkaaga muslimka isagoo ka warqabin aad u ducaysid waxaad walaalka ilaahay aad u weydiisid adigana malag ba ducada tullamida kula dul taagan oo ilaahay ku bariyaya tad'uuni astajib lakum ibariya ba ilaahay kuleeyahay ducadina waan aqbaliyay marka ducana ta ugu fadli badan buu nabigu alayhi salaatu wasalaam waa inaad tiraadid alxamdulillaahi rabbil aalamiin